marxaladaha hadda lagu jiro oo marxalado adag ah marxalado isqabqabsi ah waxa looga baahan yahay bulshada reer Banaadir inayan mashquul ku noqon isqabqabsiga siyaasadeed iyo doodaha doorashooyinka oo ay si gaar ah ay isaga xil saaraan amniga deegaanada ay degan yihiin iyo bulshada nadaafadda iyo bilicdhiska iyo dibadhiska iyo xasiloonida iyo wada noolaanshaha ummadda arrintaas ayaa ah mid wax tari karta dadka mid noloshooda kor u qaadi karta khilaaf kasta mushkilo kasta oo ay soo martay magaaladan waxay ahayd mid macluul abuurtay mid amni xumo abuurtay mid isu socodkii iyo noloshii meesha ka saartay inay intaasi nagu filaadaan oo danaheenna aan garanno haddii aan nahay reer Banaadir oo midka Boosaaso ka soo carooday iyo kan Baydhabo ka soo carooday iyo midka Jubbaland ka soo caroodaba uusan halkaan ku carab baqsan oo annaguna aanan u sacbin ayaa nala ka raba oo aan garanno aayaheenna inaan garannaa la rabo haddii mid kasta oo fidna xambaarsan oo meelihii uu ka tabanayay yacni tabashada siyaasadeed ama wax saasa uu ka soo tago oo halkaan kuugu yimaado oo kugu dilaaco ee adigu aad u fududayso xumaantiisii iyo mataqaanaa dhibaatayntiisii dhibka adiga unbuu kugu dhacayaa carruurtaaduu ku dhacayaa guryahaaguu ku dhacayaa danahaaguu hor istaagaya marka waa inaan danteena garanno aan u soo jeedno amniga iyo horumarinta bulshadeenna waa inaanan ka gorgortamin nolosha bulshada iyo shacabka ku nool gobolka Banaadir biidin illaah waxba nagama khuseeyaan dood siyaasadeed waxba nagama khuseeyaan yacni isqabqabsiga waxba nagama khuseeyaan isjiidjiidka mataqaanaa ka jira gobollada magaaladeennan isjiidjiid iyo waxaasu kama jiraan way xasiloon tahay waa inaan xasiloonaantaas aan ku hayno oo aan ka shaqayno isku xirnaanta iyo horumarka bulshada tilmaamaha aan bixinayno ka maamul ahaan waa midkaas haddii bulshada gobolka Banaadir ayan sidaas noola fahmin oo ayan garabkeena taagnayna ma xaqiijin karno rabitaanka iyo himilooyinka ummadda ku nool gobolka Banaadir ballanteenu waxay tahay ciidamadeena ammaanka oo aan garabsanno oo u taagan inay amnigeena ka shaqeeyaan inaan garab ku siino nadaafadda bilicdhiska horumarta bulshada inaan ka wada shaqayno annagoo isku duuban intaas ayaan dardaarankeena ku koobaynaa biidni illaah waana salaamayaa reer Dayniile iyo mas'uuliyiinta nagala soo qayb gashay munaasabadan maanta wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi